kulanti wanaagsan daawadayaal qodobada ugu waaweyn ee barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan haddii Allah awoodda leh raali uu ka noqdo waxa qayb ka noqon doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u ambabaxay safar kale oo dibadda ah kaasi oo uu ka baaqan karay maadaama muqdisho cisbitaalada ay buux dhaafiyeen dhaawacyada qaraxyadii ka dhacay muqdisho barnaamij wareedkeena ayaan ku eegi doonaa safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu galay iyo falcelinno kala duwan ay bulshada Soomaaliyeed ay ka sameysay arrintaasi qodobada kale ee barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono taliyihii hore hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa taageeray qoraal uu soo saaray xildhibaan Macallimo uu ku sheegay inay jiraan saraakiil u fududeeya al-shabaab qaraxyada ka dhaca muqdisho barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa warka ka soo baxay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir qodobada kale ee barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqon doono madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hor timid in la gowraco maleeshiyaadka kooxda al-shabaab amba la beegsado qoysaska kooxdaasi kadib markii falal noocaas ah ay ka dhaceen gobolka Hiiraan dagaalamayaasha al-shabaabna waxa la soo warinayaa in xarar dheere ay isaga baxayaan maadaama abaabul ka dhan ah degmadaasi ay ka socdaan deegaano dhaca gobolka Galgaduud barnaamij wareedkeena ayaan ku faahfaahin doonaa qodobadaas iyo sidoo kale qodobo kale oo xiiso leh balse haddii tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelkeena waxaan kaa codsanayaa inaad rukumato si ay kuu soo gaaraan wararka warbixinada xiisaha leh ee halkan aan soo gelino maasinidiin dhammaantiin aan ku bilaabo barnaamij wareedkeena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay u baxay safar kale oo dibadda isagoona gaaray magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ugana sii gudbaya dalka Algeria sida lagu sheegay qoraal kooban oo ay filla Soomaaliya soo saartay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Algeria uga qayb galaya shir madaxeedka dalalka jaamacadda Carabta oo 3 sano kadib dalkaasi ka furmaya safarka cusub ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa imaanaya 2 maalmood kadib markii 120 qofood oo shacab ah aan waxba galabsan lagu laayay qaraxyo ka dhacay muqdisho iyadoo sidoo kale boqolaal kale oo qaba dhaawacyo halis ah ay ku jiraan cisbitaalada magaalada caasimadda ee muqdisho taasi oo dhalisay su'aalo badan oo ku saabsanaa haddii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud xilligaani uu safar u habboon yahay ha yeeshee filla Soomaaliya ayaa isku dayday inay qiil u sameyso safarkaani iyadoona ku sheegtay in madaxweynuhu uu garab istaag u raadsanayo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab qaar ka mid ah shacabkii Soomaaliyeed ee ka falceliyay qoraalkii ka soo baxay filla Soomaaliya ee lagu sheegayay safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin in xilligan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ambabaxo safar dibadda ah maadaama weli xarumaha isbitaalada muqdisho ay buux dhaafiyeen qaar ka mid ah shacabkii ku dhaawacmay qaraxyadii gilgilay magaalada caasimadda ee muqdisho waxayna madaxweynaha sidoo kale ay ku dureen in weli muqdisho ay taallo tacsida dad badan oo Soomaaliyeed oo bulshada waxgal u ahaa uu madaxweynaha iska aado safar aan saas u buurneen isla markaana muhiimad aan lahayn waxaana shacabka ay ku sifeeyeen in safarkaani uu ka baaqan karay madaxweynaha maadaama lacago malaayiin dollar ah ay ku bixiso safarada ayna habbooneed in intii madaxweynaha Soomaaliya uu lacagaha faraha badan uu ku bixin lahaa safarada uu ugu deeqo amba ugu yabooho dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ay ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho qodobareedka xiga ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahino taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa aad u taageeray qoraal uu dhowaan bartiisa gaarka ee Facebook uu ku qoray xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimo kaas uu ku sheegay xogta ah in dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan dawladdu ay leeyihiin wada shaqayn kooban taasi oo sahashay in qaraxyada ka dhaca muqdisho ay si fudud ay ku soo galaan
magaalada caasimadda ee Muqdisho. qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee internetka ayuu xildhibaan Macalimo wuxuu ku yiri waxaa jira caqabado ay shacabka Soomaaliyeed la kulmayaan xilliyada ay marayaan wadooyinka, balse argagixisadu waxaa loo fududeeyaa markasta in jidadka xamar ay soo geliyaan qaraxyada ay ku gumaadayaan shacabka Soomaaliyeed. qoraalka ka soo baxay xildhibaan Macalimo kadib ayaa faallo dheer uu soo saaray agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir wuxuu ku sheegay in hadalka ka soo baxay xildhibaan Macalimo uu yahay mid uu ka digay tan iyo markii uu bixinayay wareysiyadii uu kaga hadlayay marxaladda Soomaaliya ee gashay. wuxuuna sheegay in weli ay jiraan dad gashan shaarka dawladda isla markaana wata shaarar kale kuwaasi oo Al-shabaab u fududeeya qaraxyada ay ku gumaadayaan shacabka Soomaaliyeed. waa sida uu ku sheegay faallo uu soo saaray taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda. Fahad Yaasiin ayaa qoraalka uu soo saaray wuxuu ugu nasteexeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in hadda ay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu qaado tallaabooyin degdeg ah uu isbeddel ugu sameynayo hoggaanka laamaha amniga, gaar ahaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. uu sheegay in hadda ay gaftay taladii iyo shaqadii ka saarneed dhinaca amniga dalka. waxa uu sheegay in hore uu ka digay in hoggaanka NISA ay cilaaqaad la leeyihiin kooxda Al-shabaab, taasina ay fududeynayso in dadka qaraxyada wada loo sameeyo dhikaaro nabad sugidda oo ay ka soo gudbaan jagboontiyada yaalla magaalada caasimadda ee Muqdisho si ay u gaaraan bartilmaameedka ay la rabaan qaraxyada goobaha ay ka fulinayaan magaalada caasimadda ee Muqdisho. qoraalka ka soo baxay Fahad Yaasiin ayaa wuxuu ku gabagabeeyay Soomaaliya waxay ka bixi doontaa mushkiladda ay ku jirto maadaama sirdoonka Soomaaliyeed ay hadda gabeen shaqadii loo xil saaray. hore ayaana uga digay in Mahad Salaad uu xiriir la leeyahay saaxiibkiisii hore ee Garataay oo ay si aad ah isugu dhow yihiin. waana muhiim in shacabka Soomaaliyeed ay ku baraarugaan dhagarta ay maleegayaan Al-shabaab iyo sidoo kale agaasimka cusub ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayuu ku yiri. qodobareedka xiga ee barnaamij wareedkeena ku jira haddii aan sii faahfaahino, madaxtooyada Soomaaliya ayaa ka hor timid in la gowraco maleeshiyaadka kooxda Al-shabaab amba la beegsado qoysaska sida caruurta iyo xaasaska ay qabaan amiirada kooxda Al-shabaab kadib markii fal noocaas ah uu saacadihii la soo dhaafay ka dhacay gobolka Hiiraan. hase yeeshee madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in arrintaasi aysan ahayn wax saxan oo diinta Islaamka ka hor imaanaysa. Xuseen Sheekh Cali oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wareysi uu siiyay wargeyska Mareykanka ee New York Times wuxuu ku sheegay in gowracu uu yahay qalad aan la sii wadi karin, dawladdana ay taasi aad uga xumaatay. Xuseen ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay weydiisatay maleeshiyaadka macawisleyda in gebi ahaanba ay joojiyaan fulinta ficilada nuuc kasta oo noocaasi ah. wuxuuna intaasi ku daray in dawladdu ay la xiriirtay gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeete Cismaan iyo sidoo kale dadka saameynta ku leh gobolka si looga fogaado in la beegsado caruurta iyo ehelada xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-shabaab. qoysaska mintidiinta ma ahan dad xura, waxaana doonaynaa inay annaga isku dhiibaan. ma ahan siyaasadda dawladda in la dilo dad rayida, mana dhiirigelinayso ayuu yiri Xuseen Sheekh Cali oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. guud ahaan saaxiibayaal barnaamij wareedkeennii waanaga intaa saaxiibayaal, waxaan mar kale idinka codsanaynaa inaad rukumataan janalkeenna si ay idiin soo gaaraan wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinno. mahadsanidin dhammaantiin.